haddii aad calaamadahan ku aragto jirkaaga waxay ka turjumaysaa in aad ku jirto xaalad stress sidoo kalena aad u baahan tahay in aad yareysid walwalkaasi ama stresskaasi. Calaamada koowaad, si walba oo aad stress uu ku haayo wuxuu kasoo muuqdaa jirkaaga, meesha ugu horeysana waa wejigaaga. Waxaa lagaa dareemayaa wejigaaga dhehiisa inuu yaraado, sidoo kale inaad isku aragto finan, sidoo kalena aad u nugushahay in ay kugu dhacaan cudurrada maqaarka. Taasina waxaa ugu wacan hormoonka stresska iyo sidoo kale in aadan helin daryeel ku filan maqaarkaaga. Qodobka labaad, waxaad u nugushahay in ay kugu dhacaan cudurrada infectionska amaba hergabka. Taasina waxaa keenayso in difaaca jirkaaga markuu stressku soo galo uu aad u hooseeyo, jaaniska infectionskana ay meeshaas ka dhalan karaan. Qodobka saddexaad, waxaa hoos loo dhigayaa in cuntada la burburiyo, sidoo kalena waxaad noqon doontaa qof cayilan. Si walba oo exercise ama diet aad u gashidna ma ku caatoobaysid, waxaana ugu wacan hormoonka stresska oo jirkaaga ku badan, kaasi oo yareynayo cuntada aad cunto in la burburiyo. Qodobka afraad, waxaa dhacayso in hurdadaada ay badato amaba ay yaraato. Taasina waxaa laga dareemi doonaa haddii hurdadaada yaraato indhahaaga, sidoo kale jirkaaga, maqaarkaaga oo waxaad noqonaysaa qof daalan. Waxaa sidoo kale qodobka afraad inoo ah in timahaaga ay daataan, sidoo kale aad dareentid in isbeddel uu ku yimaado guud ahaan diirad saaridaada. Haddii qodobadaasi aad isku aragto, waa qodobada ugu muhiimsan oo qofka lagu garto in uu stress haayo ama walwalsan yahay. Waxaana kugula talin lahaa in aad yareysid stresskaas, sidoo kalena aad dejisid qorsho aad ku maareyn lahayd. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka.